بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. shantii daqiiqo oo lasoo dhaafay waxay ugu dambeysay muraaqabo dheer oo ilaa 45 ilaa saacad ku dhawaad intaysan ka badnayn socotay. sida caadiga ah waxaan si fiican wax u fahmaa marka dadka hortooda aan fadhiyo ayaan wax gartaa. haddii 1000 qof aan hortaaganahay waxa aan sheegayo inay fiican yihiin iyo inaysan fiicnayn, inay shaqaynayaan iyo inaysan shaqaynaynin, isla markiiba waan garan karaa. taasaa marka waxay igu kaliftay inaan muraaqabooyinka ka hor sameeyo dadka hortooda si aan u ogaado waxyaabaha wanaagsan iyo waxyaabaha aan wanaagsanin, waxyaabaha shaqaynaya iyo waxyaabaha aan shaqaynaynin. taana marka waxay igu kalifaysaa inaan markaas arrimaha noocaas oo kaleeta ah aan ka hadlo. runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo aan aadka iyo aadka uga helo inaan hadlo markii aan muraaqabada dhameeyo kadib, waayo markaan warkaygu wuu cad yahay, wuuna kala soocan yahay, waxayna u badan tahay inuu yahay war wanaagsan. taa marka waa muraaqabadii. waxaa jirta sheekooyin kooban oo aan jeclahay meeshaan inaan kasoo jeediyo. sheekooyinkaas waxay ku salaysan yihiin, haddii aan si run ah u hadalno, riyooyin fara badan aan arkay, waxayna furo u yihiin in la sharaxo arrimo fara badan oo insaaniyada hortaagan, si markaas ujeedooyin kala gedisan oo la caashaqsan yahay loo gaaro. sheekadaas waxaa ugu horeysa nin reer Minneapolis oo dhalinyaradii jaamacadaha meelahaas dhigin jirtay ahaa ayaan waxaan ku arkay magaalada Muqdisho, xaafad kamid suuq kamid. marka ninkii iyo aniga sida muuqata waa wada subcinayn, waana soconay. bacdi wuxuu ku yimid guri ayuu ku yimid asaga uu ka dheer yahay. guri dacsha oo laga sameeyey maxaa la yidhaha dhoob uu ahaa. marka gurigii intuu furanayay ayaa waxaan ku dhahay, warniga waa nin reer Minneapolis soo mati. marka ninka waxaa iga muuqatay wuu xasuustay inuu reer Minneapolis ah, Minnesota Maraykanka joogi jiray, laakiin ima xasuusan aniga, walow aan dad macrifa aan ahayn. marka arrintaas waxay tusaale ka tahay qofka waxyaabo fara badan oo waxaa jira noloshaan ka hor uu la kulmay, oo qur-aanka waa ku jirtaayo meel la leeyahay maxaa la yidhaahdaa arwaaxda oo dhan alastu birabikum. marka waxaa la yidhaahdaa markaas waxaa lagu jiray maxaa la yidhaahdaa dhabarka aadam ayaa lagu jiray. markuu ilaahay leeyahay almithaaq alawali ay culamada qaarkood yidhahdaan, yani ballankii hore ayaa la yidhaahdaa. marka alastu birabikum waxay yidhahdeen qaaluu balaa. marka amin marka noocaas oo kaleeta ayaa jirta oo qofku xasuusan karo. marka arrintaasi marka waxay sharaxaysaa arrimo fara badan oo ah oo ay ka mid tahay qofka laga yaabo inuu meelo kala duwan soo maray, meelahaasna
وحوغا ير كحسوسن كرو حوغا ير كحسوسن كرا يا لكن واحد اسكعب سيدنا كان أنا أسجع من يابو سوجو جرن حسوسن واحد يا دعكر marka taas hadaan halkaas